أنا طبعي صعب مثلك ما أحب لأني من يومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلن سينا بشرف ما شاء الله وكان لح بلاد كهو كدنبو لح بل وحكو سيحقا هرتا أصحابتي إذا أيا إذنك مشغول ما شاء الله آد أما سنتين مر والبو وإلي رجلين جرتين maalmahan anoo idinka mashquul idinkan waa iga sii mashquushaan laakiin balse maanta insha Allah waa ku soo noqon doonaa YouTube-keena haduu Ilaahay karaan noqdo mar badan insha Allah waxyaabo badan anoo degsana aan rabnaa inaan ku soo kordhino haduu Ilaahay karaan noqdo balse nabcaa maxay meeshaan u soo fariisatay waxa meeshaan u soo fariisatay walaalahayga aan rabaa hambaliyo guur inaan ugu hambaliyeeyo meeshaan lix bil kadib aan hadda soo fadhiistay ayaga xitaa bisha koodeedu ahaa ninkaaxooda iyo arooskoodii laakiin maalinba beri saynan laakiin caawa insha Allah caawa fursad u helo ma sha Allah waxaan ku hormareynaa walaalkayga Salmaan SYL aad iyo aad u taqaanin horta Salmaan waa wiil YouTuber ah oo jooga Nairobi walaalkayga Salmaan waxaan ku leeyahay hambaliyo waxaan ku hambaliyeynaa guurka aad guursatay adi iyo dumaashideeda aad iyo aad u mahadsan tahay ma sha Allah mar walba i dhiirigelisa walaashay video ma duubtid mar walba soo duuba dhahda laakiin walaalkii waa la iska mashquulsan yahay mashquulkii aad u batay adi iyo dumaashideeda insha Allah waan isbaran doonaa hawadaas la iska la socdaa ma la iska saayo ma la iska waxaysnaayo hawadaas la iska yaqaana laakiin insha Allah waa isbaran doonaa waa isku imaan doonaa haduu Ilaahay karaan noqdo سلمان واتقانين وحان ليهاي بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير هاي كان حاجة يابا مركب walaalkayga asina aad ugu weyn yahay asina Hargeysa jooga waa Ahmed Nuur Cabdi yaa waa isleedin sano Cabdiqaadir Allah walaalkayga waa isku hooyaanahay aad iyo aad u mahadsan yahay asina waxaan ugu hambalyeynaa guurkiisa asi dumaashideeda Faadumo waxaan idin leeyahay dadkii ubad kala hela naqdo dadkii wax isku dhaleen naqda yani waxaan leeyahay ayagana barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a baynakum fil khayr Salmaan wuxuu joogaa Nairobi wuxuu degan yahay xaafad Isliim Ahmedna wuxuu joogaa Hargeysa labadeedu walaal ayagoo guursaday aan hadana fanbali u soo dirin waa ku xumaad marka maalin walba tabaaray igu naqad inaan soo duubo marka caaw Ilaahay mahad ay suura galiyo inaan soo duubo ma sha Allah walaalahayga mar badan idinku talagal inaan hadii idin soo dhiibo on waxay laakiin fursadii iyo waqtigii ay saamaxay waa laakiin insha Allah hadda channelkaygu waa ku soo noqday waxyaabo badan wali inaan soo socdo insha Allah caaw hadeertan videogan soo duubo laakiin ber wixii ka dambe insha Allah waxaad arkaysiin challenge-yaal harxalaalayaal waxaad markaas aad naga soo codsateen insha Allah idin soo gelin doonaa حتى waxaan isku dayeynaa cunto kariskeena xataa inaan meesheeda ka wadano haduu Ilaahay karaan noqdo waxyaabaha badan culeyska ahay horta way iiga hareen laakiin waxyaabo badan oo yar noo dhiman insha Allah noo soo duceeyo soo Ilaahay noogu saqiro anagana aan insha Allah ku waxaan soo wadnaa alaabihii oo la isku caateenay kuwa la isku ciilseenay kuwa dadka jirkooda lagu haweenay إن شاء الله waxyaabo badan aan soo socdo had waxaas alaabtaas waa dalbanay laakiin intay ka imaanayso إن شاء الله isqurxin hadeena qado adigoo oo 60 jir ah waxa laga dhigaa 20 jir sheekada odaxaayo leh إن شاء الله walaalkayga sigaasan wuu imaaday laakiin waxa sugeynaa ay asixtaa waa dhex arki doontiin channelkayga haduu Ilaahay karaan noqdo waa martiqaadkeena inoo soo dhow wuxuu dhaay beedho markaa soo noqda idin imaan doona haduu Ilaahay karaan noqdo إن شاء الله san waa sugeynaa haduu Ilaahay karaan noqdo adiga wax badan insha Allah waa iska raahayna waa ogteen inaan kaliya video aan dhameystiri karin laakiin insha Allah walaalahayaan ka fadhiyo intaas hambaliyada ayaga ugu soo talagalay waxaan leeyahay dadkii isku awlaad isku dhalan noqdo sabarka hala badiyo guur hadoo imaado dhibaato imaanaysa imtixaan imaanay wax walba hala isku sabro sabarku waa shay muhiim ah hadda maanta aad sabri weyse oo qoftaan ka xanaagta adina ay isdhayd anigana ayda baa xanaagtay soo hadaad mar laba qofood reerka hadoo dhisan yahay qof uu ku dhisan yahay qofkan hadoo asigana oo sultan u xanaaqo eber waay wax faa'iido leeyahay malahan marka walaalahayga hambaliyadaas idinku talagalay wacdigaas waa idinku sii talagalay waa walaalahayga walaashiina niga weena ahay sabarka hala badiyo
wax kasta la arkaa, xumaata la arkaa, dhibaato la arkaa, dheefa la arkaa. maanta haddaan ku shilin haysan, haddaan isku sabartiin galaas biyo, haddaan isku cabtiin bir waxaad naqanaysiin lamaanaha ku soo baxay wadanka oo dantooda awlaad isku dhalay oo isku sabra isku waxaystaan naqanaysiin. dadkan oo idinku dayanaya, laakiin haddaad idab way xanaagtay bax saddexdaada ka dabagana waxaas wax ma ahan. walaalahayga marka hala sabro sabarka aad horta ha loo badiyo insha Allah. waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.